warfaafinta ayuu wuxuu ahaa ilaaladiis qaaska ah. اوكي waxaa tiri ilaaladiis qaaska ah ayuu wuxuu ahay maxamed gacmo dheere oo ahaa ninkii wasiirka warfaafinta loo magacaabay xilligii Almahdi Soomaa saas aad iyo aad ninkaas uu ahaa ilaaladiis ka tirsanaa ninkii markuu meeshaas ku soo galay asagoo tuuto wata qoray ka wato uu soo galay kadib shaqaalihii magacadooda kala bartay reerahoodu kala barbartay meeshuu nala joogi jiray shaqaalaha waagas raad Muqdisho ka shaqeey jiray marka shaqaalaha ka shaqeynay wariyaasha ka shaqeynay waxaan rabnaa bad inaad wariyaasha Soomaaliyeed dhan may u dhamaayeen bal si fiican ugu dhaqay horta Soomaali ay u dhamaayeen inta Soomaali ay ka koobanto dhan meesha joogtay wax wariye oo dakana qabina ma jirin rag oo daarooda joogay dad hawiyaa joogay dad raxweynaa joogay dad diraa joogay kulli waa la joogay meesha marka inta Soomaali ay ka koobnaayeen shaqaalaha marka aan bisraax u hadlo oo aanan waxba aanan qarin ninkan markuu meesha soo galay isla markii wuxuu ku dhex milmay shaqaalihii asagoo aad waagaas u daneynayay saxaafadda aad u jeclaa marka wuxuu dhigi jiray halkan wax lagu akhriyaa sidee wax loo akhriyaa aad u ahaa nin active oo dadka inuu dhex gala jecel qorigiisa inuu wadan jiray qorigii kama reebanayn asagoo marka studio la soo geli jiray taasoo qorigiisa wato marka ninkii markii dambe qoor ma laha nin aqoon hor u laha nin dhisan miyuu ahaa mase nin iska wuxuu ahaa wardiiska taariikh nololeed macnaha intaad ka taqaano oo meesha ka barata asiga absalaam wallahi asaga wuxuu noo sheegay anaga hore ma aan aqoon wuxuu noo sheegay inuu ahaan jiray macallin BB ah xilligii dowladda gacanka kadibna qorigaan aan qaato dhahay qorigii markii aan qaatay beeshan hadda aan ka soo jeeday ayaan u dagaalamay marka wasiirka ayaan qaraabo hoosanahay wasiirka ayaan u ahaa ilaalo saasuu ninkan nagu soo galay kadibna wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan u diga rogto in aan ku biiro shaqaalaha wasaaradda warfaafinta hal i caawiyo marka madaxa raadiya waxaa ahaa oday la dhihi jiray allah u naxariistee dhaashane maxamed faarax dhaashane xilligaas idaacadda TV raadiyo Muqdisho waxaa madax ka ah tiri dhaashana madax ka ah waa qaybta raadiyo TV ma jirin malena ma shaqeynay TV howlgab ah marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan wax dhab u sheego dad Soomaaliyeed meesha ku dhintay dad Soomaaliyeed haddii ninkan walaalkeena uu yahay dambiile oo dambigaas galay oo beelihii laga tirada badnaa ee daarood markaas magaalada ka qaxay u dhibaateeyay iyo dad kale Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan bilsariix u hadalno oo Ilaahay ka cabsano run ahaantiin aan sheegto xataa qofta marqaatiga koowaad Cabdisalaam mar labaad kugu celinaa xusuustaada inaad dib ugu noqoto adoo ka faa'iideysanaya arrintan arrin sahlan maahan nin Soomaaliyeed waaye nin waliba reer caruur haysta waaye inaan ku gefno ama dambi ka galno marno waa nin Soomaaliyeed laakiin hadduu dambi shacabka Soomaaliyeed ka galay qabiilku doona ka gal waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed loo cadeeyo marka waxaan rabaa badina xusuustaada intaad ka barat intii yareed oo taqiin intaad ka barat bal adoo u sii dhacay falaalka iyo sheekada si u dhacday bal waxaan rabaa inaad intaad ka barat inaad noo taabato adoo maasan dii dacdaada oo maasanta aniga horta 2 mitir ay sugayso cid bina aadana oo aan mataqaana ka baqay ama aan figa xishoon ma jirto qofka xaqiiqada aniga haday hooyaday ay ku dhashay hadaad dambi ummadda ka gashid oo aan noolahay markaas waxaan leeyahay ninkaas ummadda laga qabtay dibka hadda ka hor ayuu geystay ninkani markuu shaqaalihii saas ugu milmay waxaa lagu xiray nin la yiraahdo Cabdi Shiicali asaga buu yaqaanaa Allah yarxamo Cabdi macnaha waxa shaqada nin jecel u ahaa marka maadaama adeerkiina uu noqday wasiir uu ahaa gacmo dheere asigan waa ilaalo ku soo galay ayaa waxaa lagu xiray kadib shaqaalaha raadiyo Muqdisho ka mid noqday Soomaa wiil okay waaxda la shaqeynay waaxda raadiyo Muqdisho la shaqeynay teebeed qaybtaysa ee adoo faahfaahinaa insha Allah waxaan rabnaa wixii sayta u kala dhigno mogta ninkan waxaa barnaamijka ganacsiga nin la yiraahdo oo soo saara ka ahaa oo la dhigi jiray Cabdi Shiicali Allah u naxariistee xogaa ina soo dhawaad waa jeclaan si mikrofoonku ugu dhawaaday Cabdi Shiicali soo dhaw bravo Cabdi Shiicali bravo Cabdi Shiicali nin la yiraahdo oo asaga uu garanayo oo qoladan Soomaalida ee dhahdo Carab Saalax Cabdi Shiicali marka barnaamijku daadii jiray barnaamijka ganacsiga ayuu ka ahaa program soo saare iyo soo jeediyo labadaba ka ahaa Allah yarxamo okay marka ninkaas ayuu barnaamijka la diyaarin jiray asagoo raaci jiray asaga markii dambe u dhiibay dhowr program uu yiri bal ila akhri waa talantaali aan wada akhrinayna Cabdi Shiicali ninkan soo saaray kadib Cabdi Shiicali wuxuu ku shabadeeyay in uu yahay nin daarood waan Arab Maxamed Saalax waa wuxuu ku shabadeeyay inuu daarood yahay
daarood waayo dhahay ninkan booskan anigaa ka qaadan doona mustaqbalka macnaha hadalkaas adiga ma taagna markuu lahaa saad ku ha ogaata ha hadalkaas waa joogno anagoo joogno oo wakaaladda wararka joogno marka ninkan mustaqbalkan waxaan u qaadanay mustaqbalka in uu ninkani uu noqon doono nin kaga fiican ama kaga cod macaan ama kaga wax soo saaris badan saas daraaddeedna madaxda ay ka qaadi doonto cabdi cal la dhihi doono ninkan ayaa kaa aktifsan ninkaana ku wareejinay meesha saas u haysteen marka adig markuu hadalaas dhihi jiray annaga waxaan u haysanaa ninkani wuu ka aktifsanaan doonaa wuu ka barnaamij raadin badnaan doonaa wuu ka cod macaan waa ka xumahay waa ka go'yey laakiin nagu soo noqon doonaa cabdisal waa kusoo noqotay maasanta waa soo noqotay cabdisal cabdisal waa soo noqotay maasan tahay marka waa ka xumahay qadkiisa xoogaa ciladaa kusoo baxday insha allah laakiin qadka wuu iska hagaajin doonaa insha allah cabdisalaam waa ninka markhaatiga nool oo hadda lahayo oo weliba dadka si wanaagsan u yaqiino goobjoog ka ahaa la soo shaqeeyey taariikhda uu soo sheegi doon insha allah uu nagu soo noqon doonaa cabdisalaam insha allah sidaas kusoo noqon doona qadka kusoo noqon doona dhibaato malaha balse intaan noo soo noqonaya cabdisalaam waxaan jeclaan lahayn bal inaan waraysi xasaasiya laba waraysi uu bixiyey laakiin mid kamid aan soo qaadanay waa mid uu ku qirinaayo inuu ahaa wariye inuu ahaa oo maanta bixiyey waraysigaasaan rabnaa bal inaan dhegeysano wax yar waa isku soo noqonaynaa cabdisalaam waa soo noqotay braawo cabdisalaam aad iyo aad waa mahadsan tahay waa soo noqotay cabdisalaam waa jeclaan lahaa inaha braawo allah ciise waa soo noqotay cabdisalaam marka waxaa ka wadaa markaas tartan inuu meesha ka jiri doono halkaas iyo wad marka ka soo halkaas marka ninkan waxaan u malaynaya inuu tartan geli doono uu cabdishii cali booska asaga lagaga qaadi doono ninkii kadib waxaa noo yimid nin asagana allah iraxmo oo la yiraahdo abukar wariye la dhihi jiro asagana oo dhalinyarada ka mid ahaa oo asagana la qaxay qoladii u qaxday madaxweynihii raacday ku jiray laakiin asagana uma dhalan beeshaas laakiin wuxuu iskaa nin dhalinyara iska qaxay oo wariyaashii waagaas iyo qaarkood iska raacay laakiin wuxuu ka soo jeeday beel la yiraahdo shiiqaal waa garta kaasina magaciisa wariyaas kale magaciisa abukar la dhihi jira abukar yare abukar wariye inta badan ay dhihi jireen marka nin aad iyo aad active u ahaa abukar marka abukar dhalinyaradaasuu raacay kadib uu soo noqday abukaraa noo yimid mahad allah iraxmo oo ahaa madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska mahad aadan xasan mahad cadda la dhihi jiray iikaadi hega waalin waxaan jeclaa marka hore inaad gu socodso kii oo la shaqan jiray magaciisa muxuu ahaa kan waxaa tiri abukar wariye waa shiiqaal waa wiilkaas carab saalax uu ahaa kanina wuxuu ahaa abukar ka kale magaciisa tiri iwaadi kikood carab saalax kan ahaa ii sheeg cabdishii cali cabdishii cali wuxuu ahaa ninka wariyaha qaybta barnaamijka ganacsiga ganacsiga u qaabilsan raadi muqdisho okay kaas waa carab saalax waxaan jeclaa nin walba qabiilkiisa inaan insha allah xataa laftiisa aan xusno ukaadi marka kaas labadaas waxay ahaayeen cabdishii cali iyo abukar wariye labadaas shiiqaal iyo carab saalax ahaayeen labadu marka waxay ka shaqaynayeen waa ninkan okay hore ugu soco marka haye raadi muqdisho ay ka shaqaynayeen mahad aadan xasan nin la yiraahdo asagana oo ahaa ogaadeen oo ahaan jiray madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska asagana mahad aadan xasan la dhihi jiray mahad aadan xasan haye oo asna ahaa ogaadeen oo kasoo jeeday asagana wuxuu ahaa madaxa xafiiska ogeysiiska raadiyo muqdisho madaxa ogeysiiska okay waa gartay saddexdaas marka asay toos ula shaqeynayeen laftooda soo ma may ulama shaqeynayeen macnaha raggaas wuu calaamaysta rag u calaamaysta waa ma fahamtay asaa calaamadaystay waa gartay wuxuu u haystaa markaas ayuu waa gartay marka xaaladihii qabiilkan aad u kacsan marka xilligaas soo ma aad u kacsan abukara marka wuxuu ka yimid dhinacaas iyo kismaayo ka yimid marka abukara marka sheekeynayey markaas waxaan taagannahay meel la yiraahdo wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona annagoo badan marka abukar wuu noo sheekeynayey hebel baa xag kaga soo tegey hebel baa xagga kusoo arkay waxaasuu daldalay marka ninkan wuu soo galay abukar wuxuu arkay waxaas ka sheekeynayo marka wuxuu nisbaystay maadaama abukar ilaa dhulkaas tegey uu dhulkaas kasoo warramayo inuu yahay familkaas marka abukar liiskii uu ku darsada asagana uu dhawaanahan uu soo afjari doono ma fahamtay nin la yiraahdo maxamed cali xaange allah yaraxma asagana waa nin aad iyo aad zaciim u ahaa oo aad iyo aad isugu fiicneen oo laanta afafka dibadda iyo afka soomaaligaba barnaamijyo ka samayn jiray
oo xaqiiqatan xaangi taariikh dheer gadaalan ka geli doonaa marka afartaas horta waxay ahaayeen afartii oo sarta dheer oo musawac uu ku dilay hal subax afartood hal subax uu dilay waxaa tiri cabdi sheekh oo carab maxamed saalaxa abubakar wariye oo shaqaala mahad aadan oo ah ogaadeen iyo maxamed cali xaangi oo ahaa nin ma jirtaan ma jirtaan waa aad iyo afartaas hal subax ayuu sarta meesha musawaca dheer oo badda iyo dhulkaas oo fi mataqaanaa oo baraawo musawac hadda waa shaqeeya musawac dheer waa fahmay afartaas musawacaas ku dilay meeshaas musawacoo la galay meeshaasuu ku dilay allah yaraxmo waxaa kuu soo haray nin yidhaha cabdiqaadir cali iidle oo ahaa nin xawaadla asagana sog marka cabdiqaadir cali iidle cabdiqaadir cali iidle oo nin xawaadlaa si fiican haye okay kana waa lambar shanaad waay waxaan rabaa marka dilalkusay u dhaceen inaad noo sharaxdo dilalkusay u dhaceen ilaan waxaan mogtahay lafteeda caawa waxaan dhegaysan doonaa ummadda dhan aan dhegaysanaysa soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka waxaan rabaa inaad bisaraxo aad qolo nin walba sida uu dilay iyo taariikhdu haddii aad xasuusto taariikhda aad xasuusto iyo sababtu iyo xilliguu dilay iyo waqtiyada kala duwanaa xaaladaas waqtigaas waxay waqti xaaladdu xun tahay marka insha allah ku noqoba insha allah maasan horta ninkani marka ugu horreysay aroor hore waxaa shaqada soo galay ninka la yidhaha allah naxariistee mahad aadan xasan mahad cadde ma xasuustaa taariikhda ma xasuustaa taariikhda waa abril ayay ahayd 8-9 meelahaasay ahayd 1991 abril 1991 hore u socoye marka mahad ayaa aroorta hore shaqada soo galay 8 barka meelahaasay ahayd marka mahad cidna ma tabin sababtoo ilaalada irid ilaalinayso ayuu subax aroortii la soo fadhiistay haye mahaduu gacanta qabsaday meeshaasuu la galay marka dhalinyaro marka meesha taagnaa noo sheegta annaga waxaan soo galna 10kii waxaa la yidhi mahad saaka xafiiska ma uusan furin dhalinyarada iridda taagnaana la taagneed oo dibaddii la taagnaayeen waa garta taakiyaa wuu ku jiray bes marka mahad la waayey oo saaka uusan meesha furin xafiiska ogeysiska uusan furin iyo dhexdii ogeysiska uusan furin marka shaki yaraa bilowday mahad ma laabanine shaquu usoo ka lahay xaguu ka baxay haye kadib abukar wariye haddana soo galay abukar wariye iriddu ka qabsaday haddana meeshuu la galay wuxuu la galaa musawicuu la galaa meesha kore meesha musawicuu la galaa meeshaasuu kusoo qaarijinaya ninkan waa garta wuxuu dilay maa dilay abukar wariyu dilay waa hal subax waa bisha waa abril 91 haye horu soco kadib aniga iyo waxaa nimid allah yaraxmo oo ila seexda habeenkaas xaafadda ila joogay maxamed cali xaangi wuxuu ahaa ninka tiftiraha afka oo majarteen ahaa luqadaha qalaad iyo luqadaha soomaaliga waa gartaye marka barnaamijyo fara badan uu samayn jira allah yaraxmo xaangi markay dagaaladii dhaceenba anuu ii soo guuray wuxuu yidhi niyow wuxuu aad u jeclaa aniga markaas ma fahamsanayn xaqiiqatan ma fahamsanayn 2 mitir ay sugayso marka barnaamij samaynayn wuxuu dhihi jiray aniga asaga ama ummad kale aan la sameynaa wuxuu dhihi jiray heesta aad ku soo qatimaysid cabdisalaan oo ha ahaato heestii maxamed calciga waa garta cirkaa dheer dhulkaa dheer heestaasuu saari jiray ma fahamta waa garta marka maxamed cali xaangi waa joogaa subaxaas asna labadiina waa timaadeen aniga waa isla nimid markaan isla nimid waxaa la yidhi wasaaradda boostada ayaa riboort ka jira dhaashana allah u naxariistay aa yidhi cabdisalaan meeshaad ka laabo meeshaas riboort nooga soo qaado wasaaradda boostada isgaarsiinta wax laga qabanaya shaqo xagga riboort nooga soo qaado waa garta waa laabtay xaanga marka meesha ugu tegay ilaan wasaaraddu dhex joogaa intaasoo boqoloo shaqaalo dhex joogaa marka cabsi kama qabo sooma macnaha waxaa daaroodka la waarsana marka aduu laftaa waxaa waaye amnigiisa mar walba wax ka ogaataa jecesho waa la socotaa yani mar walba ka waraysaa saas meelaan ka wada shaqaynaa ha ninkii isku meelaan ka wada shaqaynaa hal meelaan soo wada galnaa haddana markaan baxayno gurigeyga wada tagnaa gurigeygaan ku wada noolnahay marka xaangi ani cabsi kama qabin intuu aan ila joogo wax cabsiin kama qabin ma fahamta waa gartay iyo intuu wasaaradda joogana waxaan isleeyahay intaasoo milyan oo shaqaalaha dhex joogaa problem ma dhacayo ma fahamta waa gartay calaa kulli xaal
ninkii hadduu alla ku idmaayo waxaa xataa ilaahay badbaadiyey nin la yiraahdo cabdirasaaq xirsi xasan oo isagana majarteen ahaa iyo gabar iyadana meesha ka shaqayn jirtay rag ayaa la qabsaday cabdirasaaq ayo oo inuu kaxaystay rabay cabdirasaaq xirsi xasan oo majarteen ahaa ninkii هذا على كل حال يعني هذا كان اسكو ملغنين على كل رجي مركو أفرتاس كسو تقصلوسي أيو هرت حانجي عبد الشيخ علي ومركز دكنا كبي أيو أصول لابت واقرت مركز سيدي حوالي مو وضعنا ذاك معناها وحان ربا صادق هذا دعسو حسا أفهمان ربا ذاتك دقيسان أفهمان ninkan dadkii uu maana qof maalmo mar wadana wuxuu geysanaa meesha kore musawaca ka dusha uu geena uu soo dila rasaasta soo la maqlima meesha soo ma meesha raadi muqdisho soo rasaasta la maqlima see ku dhici kartaa in qof inta la wato la dilo mid kale hadan la wato la dilo waxaan rabaa bal inay bil sarax bal noogu si tabal noogu sheegto waa su'aal la meesha kiimide horta sarta musawaca عمل الله فولا يا جنجال كوي مثل لقى سوق قالوا هوستل ماشي دلا ما فهم مركي يرد جنجال كلا قالوا وزارة الرابط وقانون حي كسر جد عيدك البوليس كسر جد مال مقاعد مال أو كفتريف شاه لقى عب شغالها كعبانية لهت شغالها جنجال يرى كل جنا أو مصوع الله قالوا سرقة الله قالوا مصوع اللي هو جنجال لهت مركي جنجال كاسو لقى لا مال برحض وماشي إسلام ماشي أو يكتب ما فهم واقر مركا hadduu alla ku idmaayo ninkii sidaas ayuu horta maxamed cali ninkan la yiraahdo mahad iyo abukar wuxuu ka helay ganjaalka gudaha ma soo gelin ba ma fahamto waa gart oo qof ogaan karto ma jirto ganjaalka weyn oo aragtay waay rasaasta deed aan soo la maqal ma cabdisalaan see ku dhacday rasaasta ma rasaas de wadankii waa iska USC waagaas xabadaha iska dhacayeen mana la tuhmeynin mid kale ninkan afsaaro kaga dhigay degdeg meeshuu ku dilay wax aroor hore ahayd qof tuhunta ma jirto labadaas aroortii hore uu kaga taqalusay okay markii la goorma ogaad doontii marka adigu goorma ogaad doontii ilaa maalintii intaas adiga saaxiibka adoo shaqo ku maqana saaxiibka la cunay saad sheegayso ninka ah maxamed cali xaangiye ugu dambe la cunay marka afartaas markuu cunay kadib maxaa dhacay bal intii wixii dhacay bal noo sheeg kadib aniga horta 10 subaxnimo soo galay marka 10 soo galay Allah ya raxmad dhaashanay ayaa irid iga hor yimid bash barxadda iga hor yimid oo wasaaradda faafinta gudaha marka loo soo galo markaas wuxuu ugu dhaaniyo orod carar wasaaradda waxaa tagtaa boostada isgaarsiinta barnaamijkaas nooga soo qaad waa gartay marka xango ila socod xango waxaan ku dhahay niyo halkan iska sii fariisto dhalinyarada iska sii sheekayso waa ku soo laabana xaggan tagaa markaas uu dhamay haddaan halkan joogo cabsi ma qabo iska bax waa iskaga soo baxay xaggaasaan tagay marka xagga ka soo laabtay yaa shaqaalihii buuqayaan u imid meeqa saac soo laabatay marka dilku waqti u dhacay soo laabatay adi meeqa saac soo noqotay waxaan rabaa ilaa adduunyada dhegeysanaysa wixii inaan dhabta inaan wixii dhabtiisa isla ahayn xasuusano 6 saac ama 12 duhurnimo soo laabtay markaan soo laabtay meeshuu kacsanaan imid cabdiqaadir cali idlahan allah naxariistay iyo cabdi sheekh doon nageeyay iyo rag far badan meeshii walaacayo qalqalina shaqaale far badan iska dab wareega meesha ugu imid iyo oday la yiraahdo cali waranto oo madaxa farsamo yaqaanada ahaa iyo dadkaas hadda ma nool yihiin raalo dadkaas hadda ma nool yihiin oo hadda aad sheegayso oo maalinkaas marqaatiga nool ahaa wax ma ka nool yihiin ma noo magacaabi kartaa xilligan taariikhdaas wuxuu dhaceen dadka jooga oo nool oo hadda raadi muqdisho ka shaqeeya ama adduunyada meel kale ka jooga si aan waraysiga u xoogaysto horta wallaahi rag fara badan aan nool hadda cabdi sheekh doon nogeeyo kala allah raxma hadduusan dhiman hadda saacadaha hadda aan taagana wuu noolaa wuuna joogaa hadda saan jeclahay subaxaasan sheegaa subax dhibka dhacay dadka jooga u baahanahay oo si aan ula xiriirno aad wuu joogay cabdi sheekh doon nogey wuu joogay waana ninka keliya ka dagaalamay sida xaqiiqda ah waxaa kaloo joogay nin la yiraahdo cabdiqaadir maxamuud walaayo wuu joogay waxaa joogay oo ninkan hadda cabdirasaaq xirsi xasanka hadda aan kuu sheegay wuu joogay hadda ma inkastoo maqli fiilan ayagu ku nool yahay waa inaan raadiyo waayo ma hayo ciwaankiisa laakiin rag fara badanaa joogay oo waagaas noolaa hadda shaqaalihii ila shaqeynaa waaye dadka shaqaalaha oo maalinkaas dhacdadaas jooga oo adigu aad ka mid ahayd
oo aan rabna haddii aan xasuusteeda inaad xasuustaas insha allah bal inaad ku noqoto si aan waxaan rabnaa dadka kale laftooda aan u helno dhacdada see u dhacday oo dhabta ah waxyaabaha ka tagta ama ilowday inaan xasuusanno haddii ay suuragal tahay bal mar labaad ku noqo si bal haddii xasuustaada ay suuragal tahay maame waa xasuustaa waxaa joogay nin layidhaha injineer cabdullaahi yuusuf oo haddeertaan muqdisho joogo rag fara badanaa joogay raggaasi waxaa xaqiiq ah dadkan adduunyada sideeda 2 mitir ah dadka sugayso ma fahamta inuu qofka been ka sheega ma wuxuu u taagnaa ama uu markhaati ka ahaa afartaasi nin kadib waatuu wadana soo laabtay marka annaga waxaan ku xaqiijinay ninkan la yidhaahdo oo aad iyo aad kiiska u fashiliyey inuu asaga ka dambeeyo kiiska cabdi shii cali ayuurani iyo nakaanu dhahay cabdi shii cali wuu dareemay inuu labadii kala waayey saaxiibadiis haddana uu xaange asagoo qasbayo laba wiil oo kaleentoodna ay xaange garabka ka qabtay inay jiidayaan ayuu cabdi shii cali indhaha saaray suu cabdi shii cali sheega allah yarxam intuusan dhiman cabdi shii cali ninkan ayuu soo jiiday dhalinyaro fara badan oo kusoo yaacay war ninka xaggee u daa markaasuu dhaw ninkan iyo mataqaana dhexdeena ka baxay hubaysay markaas ninkan qori wataa maqri wataa wiil oo kale la socotay cabdi shii cali wuu qalqalay markaasuu dhaw ninka xaanku hadda halkan la galay ninkan iga reeba asagoo dhahayo ayaa uu asagana qolka la galay isla markaas xabadihii intii cabdi sheekh doon nageeyey iyo saraakiil fara badan oo meesha ka dhoweyd ku soo yaacayeen xabadihii qabadsiiyey markaas xabadihii si fiican loo maqlay gudaha la galeen waxaa la arkay mahad iyo abuukar iyo xaange iyo cabdi shii cali markaas u dambeeyey uu sii jiiday afartooda markaas raxdooda loogu tegay meesha afartooda hal maalin afartooda marka ma hal maala la duugay aaskaas ku dhacay xaggee lagu duugay adigoo maasan horta waa arrin muhiim ah saa ii weydiisay ninkii isla markii gasgas nin la yidhaahdo generaal gasgas inaad taqaana jeclahay cusmaan gasgas taliya-xigeenka ciidanka booliisku ahaaye ayaa markaasi meesha marayey oo xeradiis sii gelayey meeshuu arkay wasaaradda warfaafinta irideeda laisku dagaalayo laisku buuqayo asagii ilaalihiis way istaageen way soo degeen sidee wax u jiraanaa la yidhi waxaa la yidhi raggaan oo shaqaalaha ka tirsan ayaa meesha meydkooda lagu helay ninkan ayaana ka dambeeyey kiiska wuu inkiray isla markii wuu cararay meeluu galaa la waayey saaxiibadiisa gaariga dabada usoo marka gasgas meesha wuxuu yidhi kiiskan waa la baarayaa xeradiisu iska sii galay xoogaa kadib waxaa noo yimid nin la yidhahda allah yarxam uu dhintay gentleman inaad taqaana male oday siyaasi ahaa jiray si fiican kiiskan waa la baarayaa isdejiya shaqaalihii waxaas uu gudbeeyey nimankii markii xoogaa gabalkii dhici rabay ayay gaari ku qaadeen meydadkii waxay ku daadiyeen waddada warshadaha oo ma la aasin meeshii ku daadiyeen way ka soo tageen yaa meydkaas yaa qaaday oo kusoo baabuurta intu ku qaaday meydkii jidka soddon kusoo daadina taas bal ii xaqiiji waxaa kusoo daadinaya beeshuu asaga ka dhashay raggii meesha ka joogay oo mooryaanta ahaa oo irinta taagnayd okay oo raadiyaa haystay waa fahmay haye waa beesha saleymaan waa haye wax ma ka xasuustaa dadka saas weegas xilligaas meesha ka shaqeynayay oo asiga la shaqeynaya wallahi waa ciidan waxaan waa u s c ahayd ciidamo qoryo watay ahaayeen wax magacooda lama garan karin malaayada marka asagaa naga soo dhex galay asagiina soo dhex galanana wuxuu noo soo dhex galay problemkaan ma fahamta waa gart asiga hore shaqaale dowal muu aha hore muusuu shaqeeyey suu noo sheegay macallin iskuul b b baa ahaan jiru nagu dheh macallin b b na hayo kuyir okay aye marka dilkaasu waxay noqdeen marka saa ii sheegta afar wuxuu dilay cabdirashiid wuxuu dilaa tiri ninka la yidhaha cabdirashiid oo ahaa carab maxamuud saalax wuxuu dilay abuukar weriye oo shaqaalaha mahad aadan oo ahaa asigana ogaadeen waxa uu dilay maxamed cali xaangi oo ahaa majarteen afartaas wuu dilay waxaan rabaa marka cabdiqaadir cali iile iyo cabdirasaaq xirsi ayuu ma ka fakadeen see wax u dhaceen malaayig bal loo xaqiijisay ninka leeyahay cabdiqaadir cali iile iyo xawaalaha iyo cabdirasaaq xirsi xasan cabdiqaadir cali iidle allah u naxariisto wuxuu ahaa tafaftiraha raadiyo muqdisho ahaa markaas ka hor uu ahaan jiray xillaa dowladda gacanka xataa u ahaa waa fahmay cabdiqaadir cali iidle wuxuu taagnaa wasaaradda warfaafinta meesha laga galo waa taqaanaa meel yar oo shub ah ku aadan maaragtay oo balkoon camal baal shub ah marka jaranjarta la fuulo shub ayaa meesha dushaada ah sooma marka shubkaasuu taagnaa ninkanina
gacma dheer ayaa wuxuu u soo qoray maadaama uu yiri waa xanuunsanahay lacag yar oo gunna ah oo la yiraahdo farmashiyaha kaga soo iibso camal haye lacagtii marka wuxuu ku socotay nin la yiraahdo Cali Baay oo ahaan jiray ninka faaladii uu qori jiray oo markaas ahaa uu qaabilsanaha dhaqaalaha wasaaradda warfaafinta waa garta marka waxaa la yiri warqadan qaado 100 iyo xoogaa kun meel mise 1 milyan wax saas ah markaas la orod Cali Baay oo tab kala ka qaada lacagtan haye ya asaa ula tagaa ها تاكي مركو حولي يمد علي باي وحو كلها هي العقد بوزيت يسو قري سي ومالين كلا يا مركز معها مالنت ورقان دلما oo ninkii asoo u kaadib Cabdisalaam oo ayda balta arrin kala xumaan mushkil kala ninkii asoo dadka laayay ayuu hadana dhex joogaa dadkii miya oo wasaaradii wali ka shaqeeyna oo dadkii uu laayay shaqaalihii wasaaradda warfaafinta asigoo laayay hadana ka dhex shaqeeyna miya oo ka dhex shaqeeyna oo waliba ilaaladii wasiirka yaa wali oo ilaalada wasiirkaas magaciisa ku cilmi barnaamijka ka kula maqnaane maxamed maxamuud gacma dheer ah yiraahdaa waa wasaariyi hore oo xilliga magacaabay Cabdullaahi Yuusuf waa dab wasaare noqday may waxaa madaxweyne ahay Cali Mahdi waxaan ra'iisul wasaare ahay kama hadlay xilli dambe oo ra'iisul wasaare loo magacaabay oo Socaway xilli oo Socaway maxamed gacma dheer hadda laftii nooliya صح ra'iisul wasaare ku meel gaar hadda ka soo mar صح bravo waa fahmay marka afartaas soo dilay ayay marka tan sheekadan kala dood marka qisadan ka ku dhacday marka noo dhameystir qisadan wasiirka ayaa wuxuu soo saxay lacag yar oo ninkan dhakhtar ku tagay boqolaal ma ahayd mise milyan wax saas ahayd Cali Baay ayuu u qaabilsanaa wasaaradda warfaafinta qasnaji Cali Baay uu tagaaliday ka qaado lacagtan Cali Baay uu yimid Cali Baay wuxuu yiri wax lacag oo mataqaanaa soo sarrif habeeraatay ma jirto lacag kaash ma hayo laakiin daawadan hadda u jiran tahay anaa kuu soo gadaa magaceediisii انت كوسو هرتان او دغالان oo kusinaya laakiin marka hore hadda wax kaash ma hayo markaas uu maaniga asaas ugu leedahay uu caray iridu tagay iridii wuxuu ka soo qaatay mid meesha joogo qor ka soo qaatay laba wiil oo qoryo watan ka soo daba carareen jaranjarto soo fuulay Cali Baay wuxuu ku jira xafiiska iridu waxa taagan in la yiraahdo Cabdiqaadir Cali Allah yarxam marka wuxuu isiri intaad gudaha gelin xabad inuu qoriga shaqeynay in kale xabad barowaa rid marka wuxuu ka qaldantay meesha inay taasho xabadii barowada ahayd intuu san cirku u ridin ayuu shubki ku dhuftay xabadii way soo laabatay Cabdiqaadir madax kaga dhacay Cabdiqaadir goobtu ku dhintay Allah yarxam Cabdiqaadir waa qofkii shanaad u dilay Cabdiqaadir markuu meesha ku dhaco dhintay ninkii wuu falkanaxay wuu cararay ماشي قيبت الدنبه عبد القادر حواله سوق بس لا فهمسنا عبد القادر حواله كون كانوا حايل هاين دادو بيلهودو معناها دارودكي قيبه كميده iyo dadu ku maxamed salahna intaas ay yar shaqaale ahayn marka laakiin tan wiilkan waa wiil oo ama waaso ama cabsi gali oo islaha laakiin ay xabada ku fakatay marka xawaalo noqday ma sii jooga hadana ku hor waa sii joogo aragnay marka ninkan xawaalo markuu dilay maxaa dhacay markuu ninkan diray Allah yarxamo isla markaas waxa meesha marayay oo markaasna ahaa gudoomiyaha gobolka ahaa Umar Xaash Allah yarxamo inaa maqashin kale waa sax Umar Xaash meesha baarlamaanka ilaa iyo guriga Cali Mahdi ciidamada joogan waxay ahaayeen meesha uu ka soo jeedo Cabdiqaadir Cali isla markii maqleen ninkan la dilay way soo yaaceen meesha soo galeen waa gart حوالي markay meesha soo galeen ayagoo kub fara badan watay iyo baabuur fara badan waxa la harqiyay qoladii uu taakay la jooga meesha ayaga dhanba waxay ku ahaayeen 30 iyo waxsaas wiilay ku ahaayeen 300 oo ciidan timid oo familki Cabdiqaadir Cali Allah yarxam waa gart dhulkii dhan ay qabsadeen waxay dhaheen wax nuuxsan kara ma laha taakay marka wasaaraddu ka dhaxbaxay madaxtooyadu galay isla markiiba inta qoriga tuura ay marka madaxtooyada xilligaas Salamaanka dhinaca keesta madaxtooyada markaas sacadays ما سعد جوجي لكن عيد ماضي لحق جاي مركز سورة وراني غير كاسان هاي حوالي يدير ربو هل يبدبات ما فاهم واقرت هاي بس ماشي يكون هايين حواليه لان يرى ماشي جوجتيو او قريو ودتيو او كسوج او تاكي لسعتي يحكوا أرسين جوارد وحيدهن يد كل جزء لما آسيا نم كان على آسيا واقرت ورواية جسنينا هوتيل جرجورتن جسنينا مركا رجعنا على آسيا يدل مثل وقاتن رجعنا قعني كحرتين باور كي كو قادين واقرت
cumar xaashi allah yarxama iyo rag la socday ahaayeen way qaateen hurwaayay geeyeen saacado kadib galbihii camal ay soo sii daayeen ee dheheen orda dadka familka marka loo geeyaa layidhi malaha nimankani ma rabno ninkii wax dilaan rabnaa ma fahamta waa garta nimanka waa la iska soo sii daayey taake ma soo noqi taake marka dib dib kugu soo noqdo ma soo noqon karo sababtoo ah isla markiiba xawaadlihii waxay sameeyeen ciidamadii USCda meesha jooga ayay rag ku darsadeen ma fahamta waxay baawuri soo dhigteen waxay dheheen ilaalada meeshaan wasaaraddan ka mid noqon doonaa ninkaas ayaan ka dhex raadsanaynaa meeshaan joogaynaa waa garta waagaasna wax oo protocol ma jirin wax meesha ka eri kara ma jirin qof kasta meeshay tiraado intaa ilaalo ka naqana qof u diidaysa male meesha iska fariisteen ma fahamta haye taakay marka meesha uu dareemay inay xaaladdu xun tahay kuma soo noqon maalintaasoo noogu dambeysay isla marka waxaan maqalnay ninkii Kenya uu orod ku tegey Kenya markuu orod ku tegey isla markiiba islaan process Canada u xareysay oo meesha ka helay oo tiri guurso islaantii oo malaha process ciyaalkeedu kula xareysay maqalnay sidii uu Canada ku galay ma fahamta Canada adigu wadada Mareykanka ma Canada meesha hata xilligaas marka wuxuu galay Mareykanka kadib ma Canada markaan ogaatay saasi ku ogaatay laftaada cabsiraan xilligaas dad yiraahdeen saad ku ogaatay inuu taakii yahay xaalad bal si fiican noogu sharax masa saad ku ogaatay bal arinta ogaansho oo noocee markuu hadda social media soo gala mase social media markuu soo galaa social media markuu soo gala ninkan waa aqaan wajigiisa waa aqaan nin iga dhumaayo ma ahaan codkiisa waan aqaan waa asagii weli wax iska bedela habeer